مشايخ الكرام سؤال أهرسو قبل أي سوقرتي وحيل هاي عندها نبى سوقري وحليه هاي قبل لقبه سنان لقبه أيان ننك هذه كفرتي كدبنا وأسكت تقني أور بيالتي كدب بنقول سدوليه أيضا أور كله marka wuxuu leeyahay maxaan sameyn karaa gabadhina waan qaba hadda oo waan guursaday laakiin ayadoo uur la ayaan guursaday uurkaasna asaga iska leh bimaana ninkii hore oo isqabaan ay uurkaas dhacay marka maxaan sameyn karaa cunugiisa xaalkiisa muxuu noqon karaa Soomaalida waxay yiraahdaan gabadh baa waxa laga waaninahay naaxumaanta jooji ayadoo la waanina waa waxay tiri ii dhaqsada waa la ii fadhiyaa marka wixii caaw dhan laga hadlay ayaaba hadda waxa bilaabatay koobet waa mid ugu fool xumayd waa ninkaasi runtii arintiis waa culusta dulmi dhowr dhinac buu ku jiraa ama uu galay faaxishadu markay zina kaligeeda tahay quraanku waad aragteen oo aad buu u weynay magaca ilaahay u bixiyeen faaxisha loo bixiyay faaxisha waxa la yiraahdaa waa shayga fool xumada meesha ugu dambaysa ka gaaray waa zinanimada waxa dheer nin walaalkii ah oo muslim ah oo xaq ku leh bal xuquuq ku leh buu gogoshiisii wasakheeyay ayaduna waa jariimo weyn laana way kala duwan tahay haweenay aan guri lahayn oo nin lahayn iyo mid nin le way kala duwan yihiin zinadii baa kala culus iyadana culayskeeda ay leedahay mar kale culayskeeda ay leedahay oo inuu islaantii ka furtay ninkii ilaa hadda soomudii waan qabaa sooma macnaheedu waxa weeye ninkii hore qabay ayuu ka sasabtay oo ka furtay oo markuu banaanka soo dhigayna wuu guursaday ayadana waa qodob kale oo guri inuu dumiyo oo ninka xaaskiisa kala hoos baxo ayadana waa jariimo weyn oo ka weyn xoolo la iska dhaco qodobka kale ta wax weeyaan uurkan uu ka hadlayo ninku intuu qabay yimid ilmahaasi alwaladu lilfiraash buu nabigu sallallahu alayhi wasallam haweenayda ninka qaba ee xaaska u tahay gogasha u tahay inta uu xarigiisu ku xidhan yahay waxay dhasho isaga iska leh allahumma inayna ka suuroobi karin mooyee sayna uga suuroobi karin maalan xilli aysan isaga u dhali karin bay kala maqnaayeen xilli ayna caadada iyo curfiga haweenaydu aysan muddada uur lahaan karayn ayay ilmaha ku dhashay caad ahaan suurtagal ma markaas oo kale inay dhashay waa ilma zina waa laakiin marba hadduu ka suuroobi karo alwaladu lilfiraash ilmaha waxaa iska leh ninkii islaanta qabay ee gogosha iska lahaa walilcaahiri alxajar buu nabi sallallahu alayhi wasallam ninka zaaniga ee reerka soo dhaxgalayna asaga dhagax buu leeyahay asaga abaalkiisa waa in dhagax la dhaco laakiin maanta dhagaxi ma hayno ninkaasi ilaahay toobada waa aqbalaa laakiin dunuub waa weyn buu galay sida uga bixi karana ninkii walaalkiisa gogoshiisa uu fadareeyo haleeyay sida uga xalaashan karo idinka ma sawiran kartaan ya xaq bini aadan waa gurigiisii buu ka qaatay gogoshiisina waa ka wasakheeyay intaad u tagto ma dhihi kartaa gogoshii baad yaan ka wasakhay raalli haw yaafi nin tuur le tabu saxda isaga yaqaan aday ku taala laakiin mid baanan uu ku sheegi ilaahayna u soo laabo haweenaydaasi aad sida khaladka isugu timaadeenna ku celi ninkeedii dib ugu celi hadduu qaadanayo ilmaha warkiisa ka bax
qodobka kale wuxuu yahay ninka walaalka ah inaad cafi weydiisato waa inta keliyata inuu ku cafiyo tii ilaahay iyo zinadaad gashay baab kale waay laakiin isaga dhankiisa xaq uu lahaa inuu cafiyo unbuu ku dhici karaa haddaad tidhaahdo ma hortegi karo ama fidno ka weyn baan ka baqayaa anigu kuma dhihi karayo hawshaasi saasay ku dhammaan laakiin waxaa lagaaga baahanayaa cimrigaaga intaad nooshahay ninkaa walaalkaa inaad u ducayso bal wuxuun xaqiisii wax ka mid ah inaad gudi karto inaad isku daydo inahaas baan ka dhihi karaa waana runtii fasaad aad u weyn waay fasaad aan sahlanayn iyo dembi aad u culus waay wallahu a'lam